الحمد لله waxaan galabta insha Allah ta'ala aan doonayaa inaan u diro fariin qoladan jaahiliyiinta ku nool qurbaha jaaliyad bay yiraahdaan laakiin waa jaahiliin weey waxay jaahiliin ku yihiin waa dad aad moodo dadka reer ceelaf weyn ee dhimanaya nooc kastaba ha u dhintaane dadka magaca hore lahaa ee habar lamaan marka ay iyaku ka qayb qaateen ololihii ugu weynaa la isku dilay horena la isugu dilay haddana la isku dilay oo gabayo iyo fiiriya la soo fadhiisto oo la isugu jawaabo wixii dilku ka dhacay iyo wixii uu ku dhacayba caruurahoodii iyo islaamahoodiina biil baa la siiyaayo waxay ku raaxaysanayaan America darafyada caalamka oo dhan ayay ku raaxaysanayaan waxna kama dhiman caruurtoodina ma dhiman islaamahoodina ma dhiman iyakina ma dhiman waxa dhimanaya walaalkii ayayadii iyo abtigii markaasaad qiirada moodaysaa markay soo fadhiyaan media markay soo fadhiyaan in iyaga mooye cid kale oo wax fahmaysa ama wax garanaysa inaanay ka sii dartay inamadan jaahiliinta ah ee jooga dibadda waxay sameeyeen waxay ku soo isugu faanayaan oo leeyihiin mar haddii inta la idinka dilay caawan seexanaya iyo guubaabo hor leh ayay wadaan dadka qurba waxay wadaan iminka hadda guubaabadii ugu ballaadhnayd ee ugu weynayd bay wadaan kama kacdadii ugu weynayd bay hadda wadaan oo olole ku wadaan oo la isugu hanjabayaa oo la isugu la isugu faanaya taana dawladdu inay wax ka qabataa wanaagsan waayo haddub waxay shidayaan dabkii lagu hoobanayay bay shidayaan dabkii cadaabkay shidayaan darxumay u yeedhanayaan darxumay gacanta gelinayaan waxay noqdeen dad daalimiina oo aan ka dhergayn dhiigga waxay noqdeen dhiig yacab waxay go'een kuwa ilaahay ka go'ay bay noqdeen kuwa aan hanuunka ilaahay qaadanayn bay noqdeen dad aan ilaahay u hogaansamayn bay noqdeen darxumo iyo dufku baxo ayay ka shaqaynayaan dhaqaale xaaraana bay ururinayaan waxay bixinayaan taakulo ilaahay aanu raalli ka ahayn waxaan ku gabagabeynayaa ilaahay ka baqa oo lacagtiina bixinina oo ha ka isugu geynina hooyada iyo habaryarta iyo abtiga iyo inankaaga ha isugu dhiibin ha isugu bixinin ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'ala war waxaan aad wadaan ilaahayna waa idin kala xisaabtamaya bini aadankuna wayna ku arkaa idinkuna waxaad ka tihiin hormuudka ugu horeeya ayaad ka tihiin jaaliyadda qolyahan jaaliyadda la hadlaya qola kastaba ha ahaado qola kastaba ha noqoto xaqiiqadu sidaa weeye waxaanu leenahay ilaahay ka baqa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa aad gacanta kula jirtaan ma habboona ee ka hadha haddii aad garanaysaan haddii aydnaan garanayno waa annaga idiin sheegnay waxaan kula talinayaa hadday tala qaadanayaan qolada jaahiliyiinta waxay jaahil ka yihiin oo ay jaahil ku noqdeen wixii nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wasalaam oo nabigu tilmaamay oo caayo weli nabigu wuxuu yidhi man badaa camalahu lam yusri' nasaba ninka nasabkiisa qofka bini aadanka ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuurtay waxa uu ka dhowrsadaa gacmihiisa inuu dhiig geliyo nabiguna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu tilmaamay yidhi
ما يدين تصيا قفك آمن كأما يدين تصيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مركولي هي لا يظلموا قفنا يا قفت المين أخو المسلم وقفك كلا وولالكي تاسي لدق على ما يعني يكو أخو المسلم walaalka kale walaalkii weeye kaasay la dagaalamayaan waxay leeyihiin wax walaalaahin ma jiraan wax abtiina ma jiro wax ayayahina ma jirto wax maxay tahay riximina ma jiro wax sodogina ma jiro bay leeyihiin ee madaxa laga guro maqaxiibaanu fariisan kari weyn London baanu fariisan kari weyn Sacuudigaanu fariisan kari weyn waxa sameeyeen sida leedinka adkaaday ayay leeyihiin waa olole cad oo lacagta ana haya maxaa ku baxaya waxa qoriga maxaa ku baxaya imisa la siisanaya bardaloolku waa imisa suuqu waa imisa shiiku waa imisa sidaas ay ku aan bixeen inay waliba afkana ula soo dhaadhacaan oo yiraahaan maxay waad ka adkaateen maanta maxaa idinka maqan maqaxiibaanu fadhiisan kari weyn marka hore ilaa xalay baan wax cunay ilaa shalay baan quraacday ayay leeyihiin waruxu waa maxay miyaanay dad islaam ahayn waxay ku raaxaysanayaan markii intaa la dilay ayaan quraacday bal horta kuwani halkay ka kala celin lahaayeen iyo halkay ka kala waabin lahaayeen iyo halkay isaga keeni lahaayeen iyo halkay magaranaysaa عدة خلدان أي وحوشيق لهايين إلا يجا عند أوه أمته دات كانوا وادد ريدمي أو إسكود عي وقرتود مركا إسكود عين ما وحا ويان إن لا صاول يكبغا تقف جاهلة أو وحلا لا وحو كجرانا يوح برشو وأنو دي وحبا كجرانين وأنو وحبا كجرانين هو يهبرير يصدق عنو مركا جرانو جورعيو وحن كلتا لنا يا وحي إلهي النبي محمد كلتا ليان ذاتك مسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هدي مننا إلهي كبقوا هدي مننا إذنكم مسلمين موجود مسلمين تيرا مسلمين بيشيغان أيان إلهينا وحو ليه ورسد أيالا إلهي كبقوا هدي مننا إذنكم مسلمين يا محا مسلمين دي جيبا قعنت القلية كو رحم كيبا يقوي لابا إن أوغود يا هابريرتو أبتغود بي ديلين أو دولك يالا أو وحي ديلين عيال كيبا يلاين أو يقو حبا دقال وهايستان ودقال باي وهايستان لا ياب ماله وجاهل وحكولات لنا يا جالي يدى ميلكي ستي جوكتوبا لابا دينعبا نوعو يا هيبا waxaanu kula talinaynaa walaalayaal ilaahay ha laga boqo